inaad badan haday tahay caafimaad haday tahay dhaqaale maanta darajada maraya waa bronze lion faa'iidooyinka lagu helo maanta dalkeena lagama heli karo shirkadan waxaan ku helay 2 sano gudaheeda lacag dhan $30,000 in ka badan ma ka shaqeystay shirkadan abaalmarinaan ka helay shirkadan darajada 7aad markaan galay shirkadda waxay siisay gaari qiimihiisu $15,000 baan ku guuleystay darajada 8aad markaan galay waxaan ku guuleystay gaari qiimihiisu $10,000 haddana still waxaan fighting ugu jiraa inaan helo abaalmarin aad u badan oo maan joogsan wali waan sii wadaa waxaan maray bronze lion waxaan ku jiraa global share shirkadan global share baan helay maanta ma jirto Soomaaliya faa'iidooyin inta leeg maanta meel kale laga heli karo anu dadkan opportunity u abuuray waa in ka badan 4,000 oo qof baan anigu dadkan opportunity u abuuray ay 4,000 oo qof maanta meel ay ka heli karaan chance-kaas ma jirto maanta dadka anigu maanta shaqeysta anigu oran karo dadkan keenay way sii keeneen anigu shirkadda waxaan ku soo daray dad ka yar 4 qof 4tii qof qaar kamid ah waxay qaateen baabuur 4tii qof aan keenay qaar kamid ah iyaguna waxay ugu guuleysteen baabuur waxayna sii sababeen inay 4,000 oo qof oo reer Muqdisho maanta ay ka helaan chance oo naftooda iyaguna ku shaqeystaan ay qultul darro ka helaan ay naftooda ku kafeeyaan oo maanta aaminaan dalkooda inay wax ku qabsadaan real waxa oran karaa fursadaad u qaaliya oo fursad Ilaahay loogu mahad celiyo fursadaas real anigu chance-kaas manaysta still waxaan ku rajaynayaa insha Allah hadii Allah inaan sii wado shaqadayda hadii Allah ugu dambeyntii imika darajada aad gaadhay ee darajooyinka shirkadda tennis ku gaadhay ma darajooyinka ugu sareeya mise waxa jira darajooyin kale ka sareeyo oo hadda la dagaalameysa thank you very much Abdishkur darajooyinka shirkaddu waxay leedahay start and ended waxay leedahay shaqo meel laga bilaabo lana gaaro meel ended ay ku dhamaanayso anu hadda waxaan maray darajada bronze waxa ka sii sareysay darajooyin aad badan still hankayga mu istaagin still waxaan wada shaqadii iyo hawl baan wada ilaa aan istaagayo meel shirkadu ay noocayntay oo tiraalka hadda istaagtaan yani awoodii shaqadii baneed qabanaysay way joogsatay laakiin waxaan oran karaa ilaa hadda waxaan sii wadaa shaqadii baneed iyo dilaalkii badan ma ilaa hadda sii wadaa thank you very much okay Ahmed waxa kamid tahay dabcan xubnaha shirkadda tennis ee caalamiga ah caafimaadkii hantida bixisa shirkaddan xilliga soo birtay wallahi aniga horta magacayga saddexna maxamed cabdi baraan ku macdheeray shirkaddani waxaan ku soo biiray muddo laga joogo haatan 2 sano aniga waxaan ka imaaday degmada Baraawe markaan Muqdisho imaanay Muqdisho waxaan u imaaday aniga inaan jaanis aan u helo inaan dalka ka baxo oo aan wadamadan kale oo maciinbido si aan noloshaydii u badbaadiyo laakiin markaan meeshaan imaaday alxamdulillah waxaan la koosaday shirkaddan tennis oo ah xilligii markaa ay wadanka imaanaysay ama Muqdisho imaanaysay ayaan la koosaday kadibna aniga waa member baa ka noqday shirkaddii oo waan ku biiray markaan ku biiray kadibna kulli aabahay baan sokor aad lahaa qabay aad macaanka lahaa sokortu lahaa markaan aabahay ka daawayay kadib waxa sii go'aansaday inaan shirkaddii ka sii shaqeeyo xubin aan ka noqday maxamed baraawe shirkadda hadda heerkee ka gaarsantaa darajada ka gaartay aniga darajadeedu waa darajada 8aad ee star inta shirkaddu ku gudu jiray waxaan ka helay inta ka shaqeynaa shirkadda dhaqaalaha aan ka abuuray waa 25,000 ilaa 28,000 dhaqaala waa marka Muqdisho imaanay waxaan ahaday qof ehel ku tiirsan amba reer abtibaal noolaa still tahriibna si rabo laakiin maanta shirkaddaani markaan ku biiray wax badan baan sameystay oo waa shirkaddan ka guursaday markaan ku soo biiray shirkaddu wax maanaysan laakiin maanta alxamdulillah waxaan ahay qof reer leh oo shirkaddaani ka guursaday sidoo kale gaari ka wato waa yani muuliga kuma aanan riyoon inaan Muqdisho gaari kula socdo anigoo aan shaqo nooca aan qaban laakiin hore gaari aan lahaan jiray waan soo iibiyay mid kale aan hadda iibsaday haddana aan ku socdaa tan waa alxamdulillah waxaan ka helay waxay tahay ilaahay mahadiyo shaqo maanta waxaan helay awoodeed aan ku soo bandhigi karo aan shaqaale ahayn dan wax xadidan inaan laysiin laakiin ani aan go'aamin karo bishaan dhaqaalaha isoo galayo oo noqdo mid ani aan go'aamin karo sidoo kale waxaan faa'iido kale waxay tahay maanta asxaab fara badan jirto shaqadani aan ku soo cazumay oo maanta aydan si lamid ah qaarkoodna gawaari rajeenayna ku wada guuleystaan noloshaan sarfa garay qaarkood iska daa team aniga mid qaarkood ayagana nolol ay ka dhisteen reer ay ka dhisteen labaana badan ay ka sameysteen aad ma soo Nicmo Maxamed Xalane marka ugu horeysa intaadan shirkadda tennis ku soo biiray maxaa qaban jirtay walaal aad baad u mahadsan tahay aniga tennis ka hor waxaan ahay qof ardaya shaqooyin waan qaban jiray laakiin mostly waxay ahayn shaqooyin volunteer oo bilaasha هذا درجة التنس كجاد ودرجة
walaal tianis waxaan ka shaqeynayaa sanad iyo 6 bilood waxaan ahay darajada bronze lion loo yaqaano oo aan waxaan maanta kamid ahay dadka global shareka tianis kule waxaan ka sameeyay tianis ku jiray in ka badan $20,000 laba bilood ka hor waxaan qaatay gaari jooga $15,000 soo shirkadu waxay bixisaa awards bay bixisaa dalxiis ay bixisaa gawaari ay bixisaa nicmaan shirkada waxaan ka qaatay waxay anigiis igu abaal marisay markay shaqada badan aan qabtay laba dalxiis oo ah Jane iyo Spain asif ma naadin laakiin waqtiga aan doonayo naadi karaa iminka gaari ayaan ku socdaa shirkadu kambaniga waan ingiriisi waad mahadsantahay walaal jaaniska aad siisay dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa inay Tianis company ay bixiso opportunity aad u qaaliya dhammaantoodna ay ka shaqeysan karaan because of that anu waxaan ahay Tianis markaan ku soo biiray arday ka soo qalin jabiyay secondary school u sii hadaafiyay jaamacad laakiin maanta anigoon la igu imtixaamin jaamacad ma soo dhameystay iyadoo la weydiin age-kayga iyadoo la weydiin qabyaaladii wax kale ayaa Tianis waxa laga siiyay opportunity ay siiyaan saxaabta qaaliga xaqan la fadhiso maanta aan ka bedelay noloshayda aan capacity u leeyahay inaan maanta anigu reerkayga iyo family-gayga aan wax u qaban karo iminkana darajada aan ka joogo waa bronze waxaan ku jiraa sanad iyo 6 bilood intaas oo dhaqaalaha aan ku abuuray dhammaan bulshada Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa inay ka faa'iideysan karaan fursadan ay iska daayaan tahriibka iyo meel wareegga iyo dawarsiga aad baan kugu hambaleynayaa walaal cali aadan guuleed intaadan ku soo birin shirkadda caalamiga ah ee Tianis adigu ka hor maxaa qaban jirtay bismillaahi raxmaani raxiim intaan ku soo birin kambanigan waxaan qaban jiray shaqo aan cid kalena wax uga awoodin anigana aan ugu filayn shaqo aanan islahayn haddii qof ii yimaado maanta oo aniga wax iga soo codsado ama aan isla waxuu kaaga baahan yahay aan nixi jiray kambaniga markaan ku soo biirnay alxamdulilah waxaan gaaray inaan naftaydana wax u qabto ummad kaloo fada badan aan fursad u siiyo inay noloshooda wax ka bedelaan marka kambaniga aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay dadka soo abaabulay cali aadan hadda darajada aad ka gaadhay tennis waa darajada hadda waxaan ku jiraa darajada 8aad bishan hadda ula aadmay bisha dambe ayaan rajaynaa inaan global share ka galo waxa xaggan qof walba uu halgama waxa waa inuu global share ka galo si uu u helo dhaqaale xorriyadeed iyo waqti xorriyad si uu u helo xaggaas ayaa loo wada halgama